habeen wanaagsan daawadayaal waxa ku soo dhawaataa warka habeenimo qalbaaya M24 TV qodobada idin heelina waxa kamid ah maamulka degmada warta nabadda saraakiisha amniga gobolka Banaadir ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga wasaaradda ciyaaraha Hirshabeelle ayaa sheegtay in dhalinyarada maamulkaasi qayb ka qaadan doonaan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab xogaayihii hore golaha shacabka ayaa xilka kala wareegay xogaayihii hore oo Nuqoyo Nuur Xuseen oo ah macallimad dhigta dugsi Quraan ayaa wajahaysa nolol aad u daran akhbaraadka caalamka warkayga aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya qarax gilgilay mundada isku xirta gacanka Kareemiya iyo Ruushka intaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkayga haweenimo ugu waaweyn iminkana ayagoo faahfaahsan aan ku bilaabay maamulka degmada warta nabadda iyo saraakiisha amniga gobolka Banaadir ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga kulankan ayaa diiradda lagu saarayay sidii dadka guryaha degaya marka hore ay soo maraan hay'adaha amniga wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa warkayno haya kulankan ay shir gudoominaysay gudoomiyaha warta nabadda Saynab Xabsi waxa ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka qaybta guud booliiska gobolka Banaadir Siciid Baryare sidoo kale taliyaha NISA qaybta gobolka Banaadir waxaana ujeedka uu ahaa sidii labada dhinac la isaga kaashan lahaa wax ka qabashada amniga iyo sidoo kale in digniino la siiyo bulshada ku nool qaybta gobolka Banaadir kulankii intuu socday ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo amar oo ku socda bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada warta nabadda Saynab Xabsi oo kulanka kadib warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in qof walba oo raba in gurigiisa uu kireeyo muhiim ay tahay marka hore inuu soo maro laamaha amniga si loo xaqiijiyo qofka gurigaasi degaya waxa uu yahay haddii kale dawladdu ay tallaabo ka qaadayso sida ay sheegtay haddaba guud ahaan maamulada iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya waxay waqti badan gelin doonaan horeyna u geliyeen sidii isbedel wanaagsan ee iskaashi ee bulshadu habeen iyo maalinba horey ugu jiifi jireen inay sii laba jibaaraan anagoo awaamirta madaxdeena fulin doona haday noqon lahayd gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo talisyada ee booliiska iyo nabad sugidda ee gobolka Banaadir ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee waqtiga badan geliyay iyo cabashooyinka badana mar walba maalin walba taagan ay jecel yihiin ama ay diyaarka u yihiin inay ka xaliyaan bulshadooda guud ahaanna anagoo isku duuban inaan ka wada shaqeyno awaamirtaas caawa ka soo baxday kulamadeena waxaana si joogto ah u dhici doono horeyna u socday sidoo kale kormeerada rondooyinka iskaashiga abaabulan ee degmushantaas degmo ayadoo 24 saacba ay degmo walbaahi ay ka socon doonaan iskaashi shanta degmo ah oo horey aysan u jirin oo marka la yiraahdo howlgalada amniga saraakiishii amniga ee kulanka ka soo qayb galay sidoo kale gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in muhiim ay tahay in la dhaqangeliyo qodobada ay soo saareen isla markaana cid walba looga fadhiyo in si dhow ay ula shaqeyso laamaha amniga si guud ahaanba wax looga qabto nabadgelyo darrida mararka qaar ka jirta magaalada wasaaradda ciyaaraha Hirshabeelle ayaa sheegtay in dhalinyarada maamulkaasi qayb ka qaadan doonaan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab wasiirka wasaaradda ciyaaraha Hirshabeelle ayaa sheegay in kacdoonkan ujeedkiisu yahay sidii deegaanada Hirshabeelle nabad looga dhigi lahaa qaar ka mid ah gobolada dalka waxaa ka soconayo dagaal looga horjeedo Al-Shabaab kaas oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka gobolka Hiiraan ayaa halka ugu badan ee kacdoonka ka socdo waxaana wali socda howlgalada iyo dagaalka iyadoona ciidanka dawladda ay la wareegeen deegaano badan waxaa soconaya abaabulo iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalkaasi haddaba wasiirka ciyaaraha Hirshabeelle Maxamed Xuseen Cente ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada Hirshabeelle ay qayb ka yihiin kacdoonka socda haday noqoto in maxaa la yiraahdaa nabadda si nabad loo dhalin lahaa mar walba maxaa la yiraahdaa doorka hogaamineed waxa leh maxaa la yiraahdaa ciidamada qaranka leh sidoo kale shacabka qayb bay ka yihiin oo qaybaha maxaa la yiraahdaa marka waa dagaal loo dhan yahay leadka iyo mar walba hogaamintana waxaan isleenahay waxa ku filan maxaa la yiraahdaa oo mar walba hogaan aha ciidamadii maxaa la yiraahdaa geesiyaasha qaranka cid walba marka Soomaaliyeed ama dhalinyaro ha noqoto ama shacab ha noqote ma aha wax lagu kala harayo waa wax maxaa la yiraahdaa lagu xureynayo deegaankii dalka dhalinyaradan kuwaas qayb ka yihiin
ciidamaday ku jiraan taladii ay leeyihiin shacabkii ay ku jiraan marka sinaba meel ay uga maarmayaan male laakiin waa maxaa la yidhaahdaa waa guluf maxaa la yidhaahdaa ay hormuud u tahay hormuud u yihiin ciidamada qaranka ee dalka Soomaaliyeed. Wasiir Ceynta oo sii hadlaya ayaa sheegay in dal aan nabad ahayn ay adag tahay in kubadiisa heer sare laga gaaro. Waxaan weydiinay wasiirka sida ay ugu suurtageli karto in iyadoo ciyaaraha maamul goboleedyada loo diyaar garoobayo dhalinyarada ay qayb ka qaataan dagaalka. waa mahadsan tahay tartanka maamul goboleedyada waa aduu sanadii hadda ugu dambeeyay oo munaasabada doorasho lagu foolanaa darteed buu maxaa la yiraahdaa dib u dhac badan uu sameeyay sidaad ka warqabtana sportiga waa isdhaxgal bulsho asaga qayb ka ah nabadda asaga qayb ka ah soo celinta nabadda maxaa la yiraahdaa marka waxaan go'aansanay ayadoo hawlgallo ay socdaan in haddana bilooyin kadib bisha February in la soo noqdo anagoo rajaynayno in ayadoo wax badan laga qabtay hawlaha amniga dalka in ay noqon doonto si yar dabaaldeg oo kala ah ayadoo aan rajaynayno insha Allah taala in bisha February kulankaas inuu isdhaxgal bulsho iyo maxaa la yiraahdaa isjacayl maxaa la yiraahdaa dhalinyarada iyo maxaa la yiraahdaa deegaanada dalka in la sii ambaqaado. Xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa xilka kala wareegay xogahayii hore. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa warka inoo haya. munaasabad xilalka ay kala wareegayeen xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri sidoo kale xogayihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdikariin Buux ayaa waxa ay ka dhacday xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho. munaasabada waxaa ka soo qayb galay habdhowraha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa mas'uuliyiin ka socotay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka. ugu horeyn waxaa hadalka qaatay habdhowraha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. waan rajaynayaa xogayaha cusub iyo maamulkan inay isfahmi doontaan qof walba oo Soomaaliyana in baa levelkiisu gaarsanay yahay si daafurna wacyigelin Cabdikariin oo hadlayo inaan wax wada ilaashano waa muasasada naga wada dhaxaysa shalay rag baa joogay maantana kuwa jooga berina kuwa kale oo anaga hayn ayaa joogi doona darteed marka waxa ugu wanaagsan waxay tahay inaan ilaalino muasasadan Soomaaliya inay leedahay hadday document tahay hadday gaadiid tahay iyo hadday dhismo tahay inaan wada ilaashano dardaarankaas ay xogayihii horena ku dardaarmay. waxaan ka rajaynayaa in dhinaca dumarka maadaama aan rabno horumarin xog hayn matalaad baarlamaanku waa matalaad shacabaa la matalayaa dumarku waxay ku jiraan shacabka waliba waxaa la yiraahdaa ayaga percentage markii la fiirinayo wax sax ma hayna laakiin ayaga badan la yiraahdaa hadday badan yihiin inay muuqdaan ayay ahayd. Cabdikariin Xaaji Buux xogayihii guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay dhankiisa waxyaabihii uu qabsoomay muddadii 10 sano ee halkaasi uu joogay isagoo tilmaamay in golaha shacabka uu wax badan ku soo kordhiyay isla markaana uu ka rajaynayo xogayaha guud ee cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri in halka uu ka sii wado maadaama uu sheegay in uu yahay shakhsi aqoon badan leh. aniga baarlamaankan wuxuu ii yahay ilmo aan koriyo kale oo 10 sano ayaan ka soo shaqeynayay waxaan markaan saa wax waan yaaba halka laga bilaabay halka aan maanta marayno nasiib wanaag waxa in maanta xogayaha bedelaya yahay nin waaya araga dawladnimo garanaya aqoon leh. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xiray xogayaha guud golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu xilkan la wareego isla markaana shaqada halkeeda uu ka sii wadi doono. waxa uu mahad ballaaran u jeediyay xogayihii guud ee isaga ka horeeyay ee Cabdikariin Xaaji Buux isagoo tilmaamay inuu yahay shakhsi wax badan ku soo kordhiyay baarlamaanka Soomaaliya. inaan u mahad celiyo xogayaha oo aan aaminsanahay inuu yahay dadka farakutiriska ee Soomaaliyeed oo dalkan runtii u soo halgamay waqti badan soo galiyay. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaanka golaha shacabka oo horeeyay gudoomiyaha ku-xigeen koobaad iyo labaad iyo habdhowrayaasha iyo dhammaan intii runtii taladeeda lahayd in aan si qabto ama xilkan runtii aan golaha shacabka ugu adeego.
waxaan rabaa kaliya halkan inaan ka cadeeyo wanaagii uu soo sheegay xogayaha waa sii horumarin doonaa waa ku dul shaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan codsanayaa guud ahaan madaxda golaha shacabka iyo dhammaan shaqaalahaba in runtii wada shaqayn la ii muujiyo la ii soo dhaweeyo waxaan ahay qof runtii meelo badan ka soo shaqeeyay waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in talooyinkiina aragtidiina iyo wax allaale wixii shuruuc hooyo Ruqiyo Nuur Xuseen oo ah macallimad dhigta dugsi Quraan ayaa qoyskeeda wuxuu wajahayaa nolol aad u daran hooyadani ayayna ku adag tahay in kaligeeda ay maamusho nolosha qoyskeeda wariyayna Maxamed Ciise Koona ayaa warbixinta inooga diyaariyay waa hooyo dhashay 7 caruur ah oo ay ilmaheedii banaanka jiiftaan kadib dab xoogan oo burburiyay gurigeeda oo ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxay qoyskan iyagoon haysan garab bini'aadanimo iyo caawinaad dul joogaan gurigoodii oo gubtay muddo 7 cisho ah gurigan looma soo hoyan waxa ku noolaa hooyo iyo caruurteeda balse gurigeedii waxa basbeeli dab ka kacay hooyadan waa macallimad dugsi Quraan waxa ma haysato waxay u baahan tahay caawinaad uga timaada bulshada Soomaaliyeed Ruqiyo Nuur waa macallimad dugsi Quraan oo iyadoon guri ay u hoyato kuna laabato uusan ka dambeyn marka ay dugsiga kala fasaxdo ayay haddana wax bartaa caruurtan da'da yar oo kama aysan daalin wax barista ubadkan ani dadkeena wax bar waxa bilaabay xiligii oo bishii 2017 bishii labaad bilaabay iskuulkan waa isku wadi iskuulka gurigeegan ku qoray markaan gabdhi inta wiilala u qorqoray iskuulada ana maayo shahaada mahay wax mi hay'ad mi markaasaas u barbaro heer waxa iskuulaadka u kala diray fasal 6 iyo fasal 7 fadhiisnay quraankan dhinaca ka wadi gabdhaha baraati kala siina haday quraanka gabdhaha oo ku adag yahay dugsigan u soo oo macalinka waxa leeyahay dugsiga siyaada bal anin waa nil jira dugsigan waa nil joogay arday oo dugsi Quraan aan bar oo magaalo joog way jiraan iskuulaadka aan ka gabdha jiraan hada oo dugsi sare dhigtaan kuwaas way jiraan oo ani oo barbari dhanka Quraankan waa lagu tarbiyooyaa wiilasha iyo gabdhaha dhanka Quraankan waa lagu tarbiyooyaa dhanka oo iskuulaadkan waa ku tarbiyooyaa waa isku wada duruufaha adag oo ay wajahayaan qoyskan ayaa waxa ka warbixiyay hooyada qoyska hoygoodu gubtay Ruqiyo Nuur Xuseen ma sha Allah alxamdulillah ilaaha mahad leh nolosheena horta maanta hore way iska fiicneed laakiin hadda nolosheena way xun tahay li'annahu maxaa yeelay hadda guriga naga gubtay wixii dhanaa naga gubtay wax ma haysano ما شاء الله عدا guriga markaan na kaalmeeyeen wax na siiyeen hada 2 joodir 3 joodir amal aan ku sii jeefnaa xabad oo noo juriyaan heeri markaan ilaaha mahad leh imtixaan yar oo ahay imtixaankiina ilaaha na gudbi wax imtixaanaad ah oo yar oo ahay markaan kulli ta'khiir lahu khayr asiir alla subhanahu wa ta'ala shay walba oo daa khayr oo la daay markaan talaadi ilaa halaan oo guriga la daasan oo na dunsan yahay khayrkan ilaaha soo dadajanaay alxamdulillah dhanka kale Leyle Muxiidiin Axmed oo ah dariska reerkan danta yar ee hooy la'aantu haysato ayaa dirtay baaq ah in la caawiyo reerkan jingadan iyo waxa u jeedaan meeshaan ku noolaayeen waa meel hal qol iyo kushiin iyo wax u ahaa marka alxamdulillah dhibkan ilaaha keenay wuxuu marka dadka muslimiinta waa u jeedin anaga hadeertaan macnaha wixii dirisnimo iyo walaalnimo waa ku caawinay waxa ka codsanaa ummadda islaamka inay dadkan iska daruufeysan xaaladooda waa u jeedin inaa soo caawisaan ilaahay ajir iyo xasanaad badan ilaahay ala soo koobi karin ha idin siiyo insha Allah waxa waa adduunyada wax la isku qabanin wax kale oo la isku qabanayo ma jirto marka waxaan leeyahay macnaha muslimnimo hadee jirto in macnaha la soo caawiyo dadkan masaakiinta oo dhibaateysan wallahi macallimad iska tahay oo dugsi meeshaan ciyaal wax bartaa wallahi iyada ciyaalkeeda soo xamaalato marka ani inta ka ogahay waa intaas ugu dambeyn Ruqiyo Nuur Xuseen ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsatay inay u dhisaan guriga dabku ka burburiyay iyadoo sidoo kale ugu baaqday inay caawinaad degdeg la soo gaaraan maadaama ay dareemayso xanuunka nolosha oo ay kali ku tahay
bulshada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ay kaalmeeyaan maadaama aan ahay walaashooda Soomaaliya hooyo Soomaaliya oo qashuucsan bulshada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dal iyo dibadda intay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay si degdeg igu soo caawiyaan nambarkayga telefoonka waa 4654 hooyadan sidoo jeedaan wali waxay diyaar u tahay xaalad kasta ku sugan tahay nolosheeda iyo xanuun kasta dareemayso in ay barta carruurtan Soomaaliyeed Qur'aanka Kariimka sidoo jeedaan maalin kasta halkan ay timaada iyadoo Qur'aanka barayso daa'irtan oo iyagu ah ubad soo koraya Maxamed Ciise Koona M24 TV Muqdisho wili waxaad daawanaysaa warka haweeney muuqaalbaaya M24 TV aad ka daawanayso iminkana hada isla eegna akhbaraadka caalamka qarax xoogan ayaa galgalay buundada isku xigta gacanka Kareemiya iyo Ruushka goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muhiim u ah dagaalka Ruushka uu ku wado dalka Ukraine ayadoona dawladda Ukraine aysan sheegan mas'uuliyadda qaraxaasi Ukraine ayaa dhankeeda soo dhaweysay qaraxaasi la eegtay buundada isku xirta gacanka Kareemiya iyo Ruushka taas oo muhiim u ah qodobkaasina wuxuu dambeeyay warkeena habeenaa kala socotay shaashada muuqaalbaaya M24 TV inta ku kulmi doona wararkeena xigaanigii saaxiibada kale oo warkayga la qayb galooydan leh sida ay nabadgelyo saaxiibaya